السلام عليكم kusoo dhawaada hal daqo maanta waxaynu barnaamijkan ku soo qaadan doonaa dal laga yaabo inaadan weligaa maqal waa dalka Belize waa dal lacag Caribbean kaas oo ku yaal xeebaha waqooyi bari ee bartamaha America wuxuuna xuduud leeyahay Mexico iyo Guatemala midka guud waxaa lagu qiyaasaa 22,970 km2 waxaana caasimad u ah magaalada Belmopan waana magaalada ugu weyn dalkan tirada dadka waxaa lagu qiyaasaa 408,487 qof dalkan waa dalka uu dadka yar marka loo eego dalalka dhaca bartamaha America luqadda rasmiga ee dalkan lagu hadlana waa Ingiriiska dalkan waa dal kaliya ay luqadda rasmi u tahay Ingiriiska marka loo eego dalalka dhaca bartamaha America 70% dadku waxay ku hadlaan luqadda Ingiriiska diinta ay dadku haystaan waa Kiristaanka ma ogtahay dalkan inay caasimad u ahayd imbaradoriyadii lagu magacaabi jiray Maya sidoo kale waxay wada muhiim u ahayd ganacsiga imbaradoriyadan dalkan waxay xornimada ka qaateen Ingiriiska sanadda markay ahayd 21 Sebtembar 1981 lacagta rasmiga dalkan waxa lagu magacaabaa Belize dollar fadlan haddii aad video ka heshay like saar haddii aadan ka helin laba mar dislike taabo